بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقت ير أو كوبان وحان كهدلايا دعاء عجيب بدن أو شخصيا أنتجابيي أو أحد من العلماء الأفاضل أن كبرتي دعاء داسي أيان رباه walaalahayga Soomaalida meel kasta ay joogaan inaan la qaybsado ducadaasi. aayad qur'aan ayaa laga soo qaatay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qur'aankiisa qayb kamid ah ayaa laga soo qaatay. marka culimada ducadan aan ka dhageystay waxay yiraahdeen wala sheekh caalim oo Sacuudi ah ijtihaad uu sameeyay. ijtihaad macnaheedu waxa weeyaan dadaal oo dheeraad ah oo ah fahamka qur'aanka ah. ducadaas waxay ka hadlaysaa wax walbo Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantiisa ku jiraan. haddii xaggiisa aad aado aad qirato inay gacantiisa ku jiraan asaga kaliya uu bixiyo waxa aad rabto Ilaahay ku siinaya. marka sheekha marka wuxuu yiri 40 jeer xaguu 40 jeer ayaa lagu celcelinaya ducadaasi. marka xaguu ka keenay ayaa qofka uu isweydiin karaa. 40 jeer quraanka meelo kala duwan ayay ku soo aroortay iyo xadiis xitaa oo maaragtay 40 ka hadlayo bini aadamka marka la abuurayo. marka tiradaasi 40 ku barakaystay. marka wuxuu yiraahday ducadaasi 40 jeer lagu celceliyo waxaa dhici doonta qofkii in Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabay uu siiyo. anaga kolay dadna way akhriyeen Ilaahay wuxuu rabay uu siiyay. ani waxaan ku daray oo kaliya ducadaasi waqtiga waxaa jira ducada la aqbalo. laba waqti aan si gooni u sheegayaa oo ducadan aad akhrisanaysid. waqtigan waxa waaye salaadaha kadib ducada waa la aqbalaa. aadam kala dukada kadib oo Ilaahay aad hor istaagto oo waajibka aad gudato oo gacanta kor aad u taagto Ilaahay uu ka aqbalaya. waqti kale oo qaas ah la sheegay waa habeenkii salaada subax saacad ka hor ama nus saac ka hor dad Ilaahay u istaagto. xadiis ayaa jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu soo dego ayaa Ilaahay wuxuu dhahayaa qofkii oo taagnaa salaada u taagnaa hal min saa'ilin fa'u'tiya ma jira qof wax weydiisanay aan siiyo. waqtigaasi qofkii ducadan akhristo Ilaahay wuxuu rabo wuxuu siinayaa saacadaha ku xigta inuu rumaysto kaliya waa. markii Tylenol aad qaadato oo madaxa ku xanuunayo waxaad aaminsan tahay Tylenolka markaa qaadato madax xanuunka inuu kaa tagayo. waa wixii bini aadamku uu sameeyay. ka waran wax Ilaahay ku tacalluqa. ducadaasaan idin sheegayaa duca la xifdin karo waa hal line oo kaliya 40 jeer ku celinaysaa. salaada kadib aad akhrisanaysaa salaad kasta kadib ama qiyaamul leelka inaad u kacdo habeenkii iyadoo dadka ay hurdayaan sujuud adoo ku jiro ay 40 jeer ku celinaysaa. kadib Ilaahay waxa weydiisanaysaa waxa aad rabto. dada akhris ducadaasi waxaan rabaa inaan idin sheego dadaa shalay murugo iyo culays soo food saartay. waxaan isugu naseexaynay ducadan in la akhristo dadka culayska haystay. waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo ducadaasi xalay akhristeen salaatu leelka waqtigeeda akhristeen salaada subax marka laga baxayna 40 jeer ayay akhristeen. dadkaasi balan ayay lahaayeen 12 arrimahoodii waa loo sahlay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ducadu waa maxay marka? سيؤتينا الله من فضله رالي هذا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. أنت تقول علينا إساء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله
سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون أفرتن جرك والعلنيسا أدو ويسقبو أدو صلاة كبحي أما وقت صلاة الليل markaad salaatu leelka aad dhamayso rakcada ugu dhamayso adoo sujuudsan waa maxay macnaha ducada ducadaasi waxa waaye xasbuna allah ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa igu filan ayaad leedahay na wax walbo haysto oo dhan ilaaha ku filan in waxaasi qaybtaasi waxa akhriyay sayyidina ibraahim alayhi salaam xasbuna allah wa ni'mal wakiil wa xasuusataan سيؤتينا الله من فضله معناه بحويان إلهي سبحانه وتعالى فلقيسة إلهي أسائسين دون وحن أباهناه مركز إنا إلى الله راغبون إيضا كابن وحواي إن إلهي رجاءت كلاذا حلاذا إله أي رجاء كلانهاي إن قفك إلهي ويديست إنه سيناي أفرتن جار آيات كعلنيسا أظن نيتك هاي أو يقينسا إنه إلهي كسينا وحضرتونه كسينايا tijaabadeedana oo kuu sheegay dadkii shalay u heshiiyey inay akhristaan xalay ilaa salaada subax kadib maanta waxay rabaan ilaahay uu siiyey si mucjizay u helaan xitaa oo yaab badan marka ducadaasaan idinkula dardaarmayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu